السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضيدا يا أصحابك كحرا channel كينا نسير جرافيكس ميرول بقى الدنيا تعالى دي سكتشوكتان وأنا من سلامي وأنا جواه الأستاذ نصير مركلة إيه مقال صب كسر نقط وعن أو نكسن runtii karalka in dhawaala ah ama mudafaq ee inoogu dambeysay wax ashar aanu soo dhigno aanu soo gelino alxamdulillah ilaahay mahdi markana dib ayaan isugu soo laabanay maanta muuqaalkeena waxa aanu ku baranaynaa sida loo sameeyo business card waana sida aad muuqaalkan ciwaankiisa ku soo aragtayba inagoo isticmaali doono software-ka lagu magacaabo Photoshop anigu hadda waxaan isticmaalayaa 2015 balse dhammaan waa isku wada mid 15 2020 21 2019 dhammaan waa isku wada mid waa tahay balse inta ina muuqaalkeena u guda galin fadlan haddii aad ku cusubtahay kanaalka waxaan ku leenahay soo dhawow subscribe-taada waa inoo muhiim sidoo kale gambalelka furo si muuqaal walba aynu soo dhigno kugu soo dhaco muuqaalkanina dhammayso like-taadana hay naga bakhiilin oo inaga dhiirigelin bay inoo tahay adiguna waxba kaa dhibi mayso haddii aad taqaanid walaal ama saaxiib aad u daneeya barashada xirfadda graphic design-kana muuqaalkan la sii share garay mahadsanid waa tahay waxaanu samayn doonaa business card-kan haddeer hortaada kaaga muuqda marka ugu horeysa waxaad dhahaysaa control n oo halkaa markaad timaadid anugu 2015 baan isticmaalaysaa kuu sheegaba meesha kore ee name waxaad ku qortaa business card waad ku qoraysaa waa cardka aanu samaynayna magaciisa halkan document type aan isticmaalayo anigu waa custom baad isticmaalaysaa kadib waxaad saxdaa width-ga waxaad ka dhigtaa 3.6 waxaan isticmaalayaa ama halbeegaan isticmaalayna waa inches sida arkiisba oo horta kaaga muuqata sidoo kale height-ka waa 2 resolution-kana waa 350 cabirada aan isticmaalay waa intaas width-ga oo 3.6 ah height-ka oo 2 ah resolution-ka oo 350 ah iyo halbeegaan isticmaalay oo inches ah background contrast-guna waa ujeedaa white kadibna okay baa leedahay cabirkii aan haddeer soo samaysanay waa kan waa inoo yimid halkan ayaana marka ku samayn doonaa labadan kanna anaa hore u sameeyey marka waxaan ka soo qaadan doonaa waxyaabaha graphic design web design iyo video editing-ka ka soo qaadan doonaa halkan baan keysan doonaa balse marka hore shape ayaan soo abuuranaynaa oo rectangle ah halkaa kore ayaad ku jiidaysaa midabka waxaa weeye waa buluuga noocan ah weeye kadibna shape-ka markaasaa u abuuratid move tool-ka ayaad ku dhifanaysaa kadib shape-kii baad xoogaa yar waad toosinaysaa saa markaa u yar toosid kadib aalka adigoo haya aalta baad qabanaysaa kadib move-kaaga laba muuskaaga wuxuu noqonayaa laba xabo mid yar baa cad baa ka soo hoosbaxaya kadibna midkii aad goobiyeysay baa aad yaraynaysaa yariis baad ka dhigaysaa kadib halkaa kore calaamada tigta saxda ayaad taabanaysaa oo ku dhaweynaysaa marka kadibna falaaraha ayaad isticmaalaysaa keyboard-kaaga waxyar hoos baad usoo celinaysaa si markaa aad u saxdid haddana midkii isaga ayaad hadda mar labaad koobi ka leedahay adigoo aad qabtay kadibna tigta ayaad jag ku siinaysaa jeebabkaa markaasaa u abuuratid anugu kii horaan ku laabanayaa anugu soo samaystay marka kii ku laabtay waxaan ka soo qaadan doonaa loogada Nasiir photographer ayaan ka soo qaadanayaa business card-ka waxaan u sameynayaa company-gan lagu magacaabo Nasiir photographer oo markaas shaqadiisa tahay inuu sawirada qaado dhexda ayaana ku soo aadi doonaa loogada dhexda saas calaamadaha gaduudka ayaa ku hagaya calaamadaas markii saa dhexda kugu soo istaagto halkaa ayaa kusii daynaysaa mar kale iigu laabo waxaad soo qaadanaysaa waxaan abuuranayaa in yidhaahda rectangle-ka mar labaad shape ayaan hoos ku abuuranayaa oo kii kore aan soo abuuranaya oo kale ah buluuga kadib shape-kan ayaan waxaan samayn doonaa isagana waxyar ayaan kor u weynaynayaa halkaa ayaan ka yara jiidayaa kadibna tigti ayaan okay ku leeyahay meelahaas ayaan dhiganayaa kii waxaan ku laabanayaa marka taana xoogaa loogadii dhexda ayaan kusii yara toosinaya iyadana wahagaag markaana waxaan tegayaa kii aan hore usoo diyaariyey business card-ka hore waxaan ka soo qaadan doonaa video editing-ka iyo design-ka graphic design-ka dee waa qoraal text caadi ah adigu waa qori kartaa halkii baan keensan doonaa marka dhexda ahayd ayaan kusoo aadinayaa mar walba calaamadaha
ayaa iga hagaya ee guud ah midda dhexda markay ku aado sidaas oo sii deynaya rectangle-kii baan soo qaadan doonaa meeshaas labada rectangle cadcad baan rabaa inaan samaysto waxaan tagayaa meesha shape-ka rectangle-ka kadib halka ayaan saa u saarayaa midabkiisa waa aragtaa waxa weeye waa buluuga ma rabo white baan rabaa inaan ka dhigo halkaa kore ayaan aadayaa fill baan soo dooranayaa fillka waxaan ka dhigayaa white kadibna move toolka ayaan la dhacayaa halkaa baan kusoo aadinayaa markaa saa u sameeyo isagii baan haddana copy ka samayn doonaa anigoo altada haya waa kaasaa mid kale kasoo dhex saarayaa kadibna sidaa ayaan isna ku daynayaa aan labada xag saa dhaho shape-ka iga dhaqdhaqaaqaya qaybta layerska ayaan tagayaa shape-kaas aan usoo xiro load baan kusoo xiraya waa tahay labadan xaba marka waxaan ku sameynaya ayaan aalkan qabanaya waa koobiyeynaya dhanka kale ayaan geenaya haddana marka si shape-ku uu u qurux badnaado meelahaas oo kale ayaan usii daysanayaa meeshaas markaa ku daayo kanna xoogaa yar waa soo durkinaya halkan waa usoo durjinaya waa tahay front side-kii ama dhinacii koowaad business card-keena haddeer waa inoo diyaarsan yahay waxaa ii dhib yareeyey ama ii fududeeyey waxa weeye mid baan hore u diyaariyey midkii un baan kasoo qaatay qoraalka iyo loogada loogadaas sida loo abuuro haddaa u baahan tihiin qaybta hoose ee commentiga ee la soo wadaaga iyana cashar gaar baan kasoo samayn doonaa marka business card-ka iyo kan xoogaa yar waxaad moodaa in farqi yar u dhexeeyo shape-ka xoogaa ii yare shape-ka xoogaa yar marka kor u qaad kanna isna wax yar yare xoogaa horta control iyo waxaad taabataa plus keyboard-kaaga si zoomin kugu soo samaysmo kadibna aad shaygaa si fiican ugu aragtid kadibna saa u yeelaysid kadibna tigta taabo kadib halkaa usii dhawee adigoo flaarta keyboard kor u riixaya meelaha ku sii daa kadibna control iyo minus dheh dib uga laabo zoomkii aad soo gelisay waa tahay waxaad aragtaa marka business card-kayga front side-kii hore in sidaa uu igu diyaarsan yahay haddeerna waxaan sameynayaa oo aan abuuranayaa mar kale control n baan leeyahay waxaan abuuran doonaa sidoo kalena back side-ka ama dhinaca labaad waayahay control n markaan dhahay waa kana meeshii waxaan ku qorayaa business card side 2 baan ku qori doonaa business card ayaan ku qoriyo business card and side 2 waa dhinaca labaad waxa kale wax kama bedelayo camirkii waa intii oo kaliya wixii hore waa isaxan yahay waa wada okay injiskii baan isticmaalayaa meeshii waa custom wixii dhan waa okay kadibna waxaan dhihi doonaa okay side 2gii isna waa ka hore baan u diyaariyey mid hore ii diyaarsan baa jira isla kan baan ku salayn doonaa sidiisa oo kale aan u sameynayaa hawsha mar walba waxa ii fududeynaya waxaa weeye anugu shaqadan horaan usoo qabsaday marka laakiin shape-kan ayaan rectangle-ka ayaan soo abuurtay halkaas ayaan usii daystay isla isagii ayaan waxaan ka samayn doonaa duplicate ama copy anoo altada haya kadibna waan ku jiidayaa meeshii waan kusii weyneynayaa xoogaa dhanka u balaari kaa korena xoogaa dhanka u balaari isna aan ogaadaba labadooda inay jin yihiin kaa soo jiid kan soo dhex geli waa okay haddana dib ugu celiya meeshiisa waa hagaag waa ujeedaa calaamadaha gaduudka mar walba waxay ku leeyihiin wixii waa isku wada mid aan ku laabto side 2gii waxyaabaha waxaa weeye waa fonts ka mid ah fontiyada waxaa la yidhaha type con font baan kasoo samaystay shaybkan aduu haddaa u baahatid waad soo samaysan kartaa googlahan waa kala soo degi kartaa waxyaabahaas kadibna namekaasi waa Abnazir Osman waa weeye magaciga CEO of the company shirkadda waxaa weeye ninkii asaasay oo managerka shirkadda weeye CEO of the company baa hoos ka dhigay magacii waxaan ka hoos dhigay CEO of the company title-ka micnaha waxaa weeye qofka business card-kan iskale dee business card wuu qaybsamayaa shaqaalaha oo dhan baa loo qaybiyaa ama meesha xarunta markaa business card loo sameynayo qof walba title buu ku joogaa mid waa marketing mid waa waxa weeye waa ninkii shirkadda asaasa qofba marka wax buu ku joogaa magacii waa kaasaa markii title-kii isla midka shape-kan baan xoogaa yaraynayaa control plus baan qabanaya zoom in baan kusoo samaysanayaa kadibna waan yaraynayaa
kadibna tigti baan okay ku leeyahay halkaas baan ku toosinayaa waa tahay markii saa aan hawshii u dhameeyey waxaan dib ugu laabanayaa midkii aan hadaayay hore uga soo shaqeeyey waxaan soo qaadanayaa number scan iyo waxaan waan soo wada qaadanayaa halkan baan ku soo adsanayaa oo waxa weeye halkaas emailkii website-kii iyo baleyskii qofka laga helay positionkii uu degnaa halkanna waa loogadii Nasir Photography Company-ga dhan loogadiisa weeye halkan baan ka soo saarayaa backside-kiina waxa weeye sidaa buu inoogu dhan yahay isna marka mar walba kugu celinaya mar kalena waxa hawsha ii dhibeeyay waxa weeye hawsha anigu hore u soo qabtay dabcan sidaan jeclahayna ardada iyo asxaabta ku xiran channelka waxa weeye waa arday high professional ah oo aan markaasi beginners ahayn oo markaa xoogaa beginners soo dhaafay oo intermediate maraya saas leeyahay heerka ay marayaan meel dhexaad weeye sidaas la ajrigeed baan aniguna aan from scratch ana uga soo bilaabin insha Allah muuqaalka si xiga guul iyo gobonimo. Assalaamu calaykum.